Soomaaliya oo dawladnimadeeda dhibaato badan loo soo maray la soo baadi goobkii ugu horeeyayna uu deegaanadan ka bilowday oo aad ogtihiin dawladnimada Soomaaliya iyo qarannimada Soomaaliyeed meelo badan bay soo martay way soo kacakuftay muddo dhowr iyo 60 sano ayay jirsatay dawladnimadii 60kii la dhisay waxaan soo marnay nidaamkii rayadka ahaa ee dawladdii ugu horeysay waxaa inoogu xigay nidaamkii militariga ahaa waxaa inoogu xigay fatradii burburka iyo dagaalka sokeeye oo runtii fatra aad iyo aad u dhib badan ahayd waxaan muddo dhowr iyo 20 sano ah aan ku dhex gadgadoomaynay kumeel gaar iyo kumeel gaar ka soo bax iyo jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya oo laga soo askumay Carta iyo nidaamka federaalka ahaa oo ka sii dambeeyay oo asagana ka yimid meesha la yiraahdo Nairobi ee xanjeeda Kenya muddadaasna waxaynu ku jirnay kumeel gaar 12kii marka la soo gaaray 2012 waxaynu ka baxnay kumeel gaarkii baan ka baxnay waxaynu aadnay dawlad dhammaystiran dawladdaasina waxay ku guuleysatay inay xilligaas inay abuurto isteediyadii markii aan jirin Puntland waxaan ka ahayn Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle muddada marka طبعا deegaankani sifo gaar ayuu lahaa kuma uusan jirin kama uusan qayb qaadan waa ka maqnaa marka maanta waa ilaahay mahadii idinkii oo nabada maamul haysta degan isla socda gacmaha haysta aragti leh diyaar u ah inaad ilaalisaan midnimada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dal ahaan iyo dad ahaanba inaad qayb ka ahaataan dawladda Soomaaliyeed ee federaalka xuquuqdiina heshaan waajibaadkiina gudataan nabadna ayada naasna looga leeyahay aad ka dhigataan furaha guusha ee aad ku guuleysanaysaan marka aad iyo aad baad runtii ugu mahadsantihiin Soomaaliya guud ahaan maanta waxay maraysaa meel dhinac marka laga fiiriyo wanaagsan oo ay dhaqaale ahaan dalka sida ay hay'adaha dunida World Bankiga iyo IMF tuba ay cadeynayaan dhaqaalaha dalku kor u kacay faqrigu ilaa 15 hoos u dhacay amnigu oo ay ugu horeyso dabcan caasimadda Muqdisho uu improvement sameeyay oo aad iyo aad u wanaagsan yahay dhinaca isku filaanshaha dhaqaale dalkani uu gaaray in deyntii laga cafiyo in reform lagu sameeyo hay'adihii dhaqaalaha iyo maaliyadda in cunaqabatayntii hubka saaray dalka laga qaado in adduunyadiina aqbasho oo aan ka mid noqono bariga Afrika iyo kuwa kaleba inaan wax soo saarkii wixii Ilaahay uu dhulkan dhigay sidii wax looga soo saari lahaa inaan ku dhaqaaqnay oo uu shidaalka ugu horeeyo oo maraakiib casri ah hadda ay ku jiraan badeena ay baarayaan ana rajaynaya insha Allah muddo kooban kadib ilaa bishii 8aad 9aad inaan heli doono result sax ah oo maxaan ku dhahaa ay soo report-kooda aan heli doono
shidaalka inoogu jira iyo meesha ku jiraan iyo sida yihiin kadibna ay diyaar u yihiin inay drillingkii iyo qodistii ay bilaabaan in waddankeenu higsanayo inuu noqdo waddankii ugu horreeyey ee muslima ugu horreeyey ee Afrika ama Caraba ee satellite laga tuuro hawada laga aadiyo inuu Soomaaliya noqoto insha Allah hadii la yiraahdo in Soomaaliya ay maanta faylal ay adduunka iyo dawlado ay gacanta iyadu ku hayso oo hadii iyada gacanta lagu hayn jiray faylkeeda iyadu ay Security Council ka maanta ay dhex fadhido faylal waaweyn oo dunida ka midana iyo dawladana aan inagu gacanta ku hayno oo aan ka shaqeynayno oo xal u raadinayno marka meeshaasaan maraynaa horey baan u soo runtii ayaan u soo dhaqaaqnay laakiin dhinaca kale ayadana challenges fara badan ayaa ina haysta oo waad ogtihiin oo markaad xawligaas ku soo dhaqaaqdo in fara badan oo cadow ah ayaysan dani ugu jirin in ay Soomaaliya dhaqaaqdo oo ay ka soo baxdo ceelka dheer ee lagu riday oo ay ka faa'iideysto dhaqaalaheeda dadkeedu midoobaan horey u socoto cadowgaas faraha badan ee jira ay lugaha ayuu ku dhagdhagay meesha ugu fiican ee laga soo dhex gala ama lagu joojin karaayna waa in dadkeeda madaxa la isu geliya weligeedna sidaas u baahay marka challenge-gaas waa jira si guud dhibaatooyinka xalkoodu Soomaaliya haystay waxna waxa inagala jiray caalamku inagala jiray waxna Soomaali buu yaalaayo wixii Soomaali dhexdeed inay iyadu xalisata ay tahay waxaad moodaa inaan ku guuleysanay dawladda ku guuleysatay wixii caalamka inagala jiray deynta naga cafiya waa idinka cafinay warcuna qabantaynta naga qaada waa idinka qaadnay war Security Council ka rabnaa noo tanaasula Afrika ay dhanay noo daaya waa idin deynay war suuqana rabnaa inaan ku soo biirno ganacsatada meel walba waxa naga daadsan yahay waxa naga ilaashano haddana aan waxa rabnaa soo dhoofinayno oo golaada waa idin ogolaanay maya malaba dunidii laakiin war shabaab iyo daacish iska kaxeeya hadda inaga la rabaa iska kaxeyn war midooba inaga la rabaa inaan midoobo war doorashooyinkiina qabsado waxaan hal qof uu masiirka dhanka go asagu qorqoranaya ka baxee dadka awoodda u celiya inaga go'da dinka kama go'do marka wixii inaga go'ayay ee ahayd inagu inaan qabsano Soomaali hadaan nahay ayuu challenge ka jira wixii dunida ka jiray ee inagala jiray waa ka keenay laakiin Soomaali baan hadda wixii inaga dhexdaan ahayd aan xalisano ayuu challenge ugu weyn ka jira waqti hore xukuumaddan dan qaran waxay soo saartay markaan daraasaynay dalkan waxaa noo soo baxday inay jiraan dalkan threat haysta arrimo halis ku ah dalkan oo maanta Soomaaliya hortaagan inay jirto waxaa ka mid ah khawaarijtan munxarifiinta ee meel kasta dalkan Soomaaliya haysatay dhibaatada ku haysta ee dadka la leynayo boqolka loo dilayo iska dilayo oo dhibaato weyn ku ah horumarka iyo dawladnimada iyo dadnimada Soomaaliyeed dhiigga muslimka la xaraashaday xoolihiisa la xaraashaday dawladnimada aan la ogolayn culimadii cid walba ahlul xal wal aqd wax la ogolay aysan jirin waa thread dawladnimada Soomaaliya iyo ummadnimada Soomaaliya iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed hortaagan oo dhibaato weyn ah oo caqabad ah waxa caqabad weyn ah oo dhibaato weyn ayadana la mid ah oo taa aan ka yarayn dhibaatada jirta Soomaaliya maanta hortaagan ay tahay nidaamka infisaaliga iyo Soomaali ka go'itaanka iyo Soomaalinimo diidnimada iyo qofku inuu yiraahdo Soomaalinimadii waa ka go'ay oo waan la tagay waxa
ayadana waa threat aad u weyn oo jira oo dalka jira way maanta taagan oo ay iska basaalan tahay qofku inuu anagu Soomaali ka mid mani dawladda Soomaaliyeed ka mid mani ba si fudud soo waranay oo waagi hore aan naqaanay inay dambi ahayd oo dunida dambi ka ah laakiin dibaatada jirta waxa waaye gooni istaag doonku Soomaaliya maanta wuxuu halis ku yahay dawladnimadii Soomaaliya iyo cohesionka iyo wada jirkii ummadda Soomaaliyeed iyo nolosheedii ayuu halis ku yahay wuxuu halis ku yahay in uu dalkii Soomaaliyeed qayb ka mid ah ama bad ha ahaado ama bari ha ahaadee in ummado kale loo gacan geliyo ayaa halis lagu jira waxaa halis ah in laguba yabo hayo ummado kale aan soo dejiyo dalkii oo hal keeno dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed marka anagu mar hore identify gareynay hadaan nahay xukuumadda dan qaran inay arintaasi halis ku tahay jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa dabar go'aya afkii iyo dhaqankii Soomaaliga ha si dabar go'aya oo halis asagana ku jira Soomaalinimadii ayaa halis ku jira marka waxyaabahaas halista ku jira waa dhibaato jirta waaye oo aan sheegay mid ka mid ah marka waxaan leeyahay halkan oo uga mahad celinayaa dadka reer Khaatumo runtii maamul iyo baarlamaan iyo madax iyo shacab sida runtii noo muuqata in aragno calankaas buluuga ee dhaxda kaga taalo xidigtu ay uga go'an tahay dadkaani inay ilaaliyaan oo ramzi u ah ama calaamad u ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wada jirkeeda iyo dawladnimadeeda iyo dadnimadeedaba calaamad u ah ilaa waa iska maray ahaan lahayd laakiin waxa ku duugan ba sida macnahaas ku duugan marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin arintaas Soomaaliya marka waxyaabaha challenges ka hortaagan ee ugu waaweyn saan sheegay waa wax dadka Soomaaliyeed iyagu ay xalisan karaan in la iska xoreeyo cadawga iyo in nidaamka siyaasiga ee Soomaaliya la fadhiisiyo oo dadka awoodda loo celiyo oo ay dadkooda dadkay rabaan doortaan oo aan qof u soo xulin oo aan qof uga soo sheekayn oo aan taxta raxmad qof kaliya aan lagu jirin laakiin dadku inay waxooda ayagu qofkay rabaan inay keensadaan position ay rabaan priority bay labadaas hadda u yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliyeed midnimaduna iyo nabaduna waa laba rukun oo ay ku taagan tahay dawladnimadu dadnimadu oo laga maarmaan oo in la wada ilaaliyo marka waan idinka hambalyeeynaya sida aad midnimada u ilaalinaysaan waxaan ayadana runtii aan idinka dhadhamiyay oo aan adkaynaya inaad sidaad midnimada u ilaaliseen iyo calankan inaad nabadana u ilaalisaan haddaynan runtii aynaan nabad helin waxba inooma hirgelaayo haddaan Soomaali nahay haddaynan midnimo helinna waxba inooma hirgelaayo waana laba aan kala maarmin dad nabadaa midooba laakiin dad isdilaya ma midoobaan sideedaba dad mida ayaana wax qabsada laakiin dad kala tegay waxba ma qabsanayaan وانا سيدي واحد الشيخ شيخ هذا ولي نو اخرنا الهي وكشيغ ولا تفرقوا او dadka tafaraaruqa iyo kala tagu fashil bay keenaan marka muddo dheer baan soo fashilmayna hadaan Soomaali nahay 60 iyo dhowr sano marayna dawladihii inala dhismay ay aynu isku dhadhaweyn ama aynagu ka horeynayba waad ogtihiin heerka ay marayaan kuwa dariska ka mid ah kuwa hal sano iyo 2 sano naga weyn baa ku jira Malaysia oo anagu dadka wax ku soo bartay kamid ahay yani isku daa baan meeshay marayna waa aragteen
haddii xataa mar aan turunturoonnay oo wax inagu dhacay dee kuwii inaga darnaa genocide-kii ugu weynaa ka dhacay ee isdabargooyey Rwanday ahaayeen haddana waad u jeedaan Rwanda meeshay marayso waa aragteen marka innagu sidaan ku jirno inama anfacayso waxaynu u baahannahay midnimo si aynu wax u qabsanno midnimaduna waxay u baahan tahay nabad si ay midnimo u timaado caafimaadkeena kor uma qaadi karno jahliga iskama tirtiri karno waxbarashadeena kor uma qaadi karno dhaqaalaheena kor uma qaadi karno deganaanshaheenu ilaa waxaas deganaashay ku xidhan tahay deganaashahuna nabad waaye waa in nabad la helaa sidaa darteed waxaan ku celinayaa mar kale oon hoosta ka xariiqayaa nabaddu waa laga maarmaan waxaan ku baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inay ogaadaan war furaha horumarku waa dad nabada oo mid ah furaha fashilkuna waa dad kala tegay iyo nabad la'aan marka in fara badan baynu kala tagsanayn in fara badan baa waxaan sax ahayn oo la og yahay inuu khaldan yahay jid khaldan baan isku dilaynaa ayaan isku dilaynaa marka sabab aynu isu dulmina ma yaalaan ma jira meesha dhulkeenu inaga badan barwaaqadiisu inaga badan dad muslimiin aan nahay dad ahlu sunna aan nahay dad la yiraahdo shawaafic baan nahay baan inagu dhahnaa kulligeen taqriiban hal midab baan leenahay dalkeenna buuri iyo webiyaal iyo badan ma kala gogoynin waa la is wada dhalay oo abti iyo eede iyo adeer baa la isu wada yahay markaad fiiriso muxuu yahay reasonka marka oo aynu isu dilaa oo aynu isu dulminaa waxaa kuu soo baxayo inuu yahay shaydaan reason shaydaan inuu yahay baa kuu soo marka shaydaanku waa inaan iska naarno ila shaydaanku waa soo kii la yiraahdo iska naaro oo shaydaanka marka goormaynu iska naarayna marka waxay la tahay arrintaas Soomaali inay gaartay xilligii ay qaan gaari lahayd xilligii ay ka soo bixi lahayd dhibaatadaas in la gaaray baan aaminsanahay in lagu dadaalo marka meel walba qof kastoo Soomaali jooga midnimada iyo nabadda in lagu dadaalo waa laga maarmaan safarkanina intaas oo xambaarsan yahay waxaa intaa dheer haddaad midnimadii aad rukun u tihiin una ahaydeen haddii aad nabaddii aad rukun u tihiin waxaa la rabaa inaad arrimaha taaganeen sheegay oo ah amniga dalka iyo arrintan ah in maamulka iyo dawladnimada iyo siyaasadda dadka loo celiyo arrintaana inaad hormuud ka noqotaan iyadan labadaba ayaan rajaynayaa insha Allah haddii la yiraahdo oo waxyaabaha aan ka wada tashigooda iyo ka wada hadalkooda aan idinku nimid ay qayb weyn ka tahay waddanku axsaab buu siyaasadeed buu gelayaa 4.5 ka rabnaa in looga baxo dadkeenu waa ku dhibtoodeen dawladnimadii waa ku dhibtootay waa lagu wadi la'yahay reer hebel baa halkan lahaa reer hebel baa halkan lahaa dadkii aqoonta lahaa ee Soomaaliyeed ee dhalinyaradii wax soo baratay waa fed up bay ka istaageen maadaama positionkii iyo waxa ay tartami lahaayeen reer hebel mar hadday meesha yihiin reer hebel ma lahayn lagu gelinayo iska tag marka in dadkii war wixii competitive process hana loo geliyo aan ku tartanno oo aan xuquuq yeelano sida dastuurku qabo ku meel gaarka ah ee Soomaaliyeed ayay dadkii Soomaaliyeed dhalinyaradii Soomaaliyeed meel kasta kale yihiin marka maxaa taqaan ee yaa taqaana iyo yaa tahayda aan ka bedelo maxaa taqaan iyo maxaad goosan kartaa noogu bedela taasay salka ku haysaa marka arrintan aan leenahay dadka ha lagu celiyo awoodda ha loo celiyo marka inay axsaabtii halkan ku tartanto oo la keeno in doorasho ay timaado in ay state-kani iyo state-yada kaleba oo maxaan ku dhahaa oo nabada aan rajaynayo insha Allah inay hawshaas ay ka hirgasho arrimaha kale ee muhiimka ah waxaa weeye waa inaan de hay-adihii federaalka maadaama uu yahay maamulkan maamul curdana maamul cusub duruufo adag ku soo noolaa loo soo samray
waxay la joogaa xilligii ay dowladda federaalka si rasmi ah ay adeegyadeedii uga hawlgeli lahaayeen halkan marka waxaa ilaahay mahadiisa maanta in fara badan oo ka mid ah waan soo dhagax dhigna kuma ekee waa shaqadoodii baa la gelayaa haddii ilaahay idhaahdo haddii ay yihiin infrastructures iyo jidad iyo haddii ay yihiin caafimaad hadday tahay waxbarasho iyo haddii ay tahay maraafiq kale oo xukuumi ah oo muhiim ah oo ay tahay in la dhiso intuba ilaahay idankiis waana soo dhagax dhignay fulinteediina waa la fulinayaa haddii ilaahay idhaahdo cidna kama qarsoona saad hadda sheegteen inaad ku jirtaan state building processki ama state formation processki baad ku jirtaan yani processkii lagu dhisaayey state baad yaad ku dhex jirtaan dowladda federaalkiina rool bay leedahay dadka deegaankaana rool bay leeyihiin idinkaa noo bilaabay hab iyo mustawe iyo system baad wax ku samaysateen idinkoo ahlulxalligii walcaqdigiini fadhiisteen go-aankaasaad gaarteen go-aankaasaad gaardeenna annagoo si qoraal ah oo aan af ahayn ayaan dhahnay gacanta idinku taagnoo dhahnay waa okay waana idinkula shaqaynay state deformationka idinkaa fatra kumeel gaar u sameeyey idinkaa dastuurkii samaynaya idinkaa socda idinkaa qaangaarsiinta muhiimaddii loo sameeyey maamulkana waxay ahayd inuu qaangaaro isqaangaarsiiyo isqaangaarsiintii baad ku socotaan waan idinku hambalyeynaynaa annaga wixiina laga rabayna waa diyaaraan la nahay waana wada sheekaysanay hogaamiyaha si weyn waxaa runtii aan ku faraxsanahay inay soo gaartay casuumaaddii madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud markii ugu horreysay si officiala uu uga qayb geli doono ka mid yahay NCC da haddii laga marka hogaamiyuhu hadda wuu haystaa invitationkaas uu madaxweynuhu usoo diray wuuna tegi doonaa shirka ugu soo horeeya haddii ilaaha idhaahdo halkaasayna maxaan ku dhahaa khaatumo waxeeda gogasheeda dhigan doontaa haddii ilaaha idhaahdo wixii kale ee nalaga rabay annaga idinkaa idin daba soconnaay waxaa waaye state formationka annagana waa horena waan u sheegnay hay-adihii laga rabayna way joogaan waana diyaar halkan waxaa joogtaa xukuumaddii dan qaran wasiiro kuwii ugu tunka waaweynaa oo aan u malaynayo inaysan marna hal state oo ay wada tageen weligeed ma jirin ma dhicin hal meel ay wada booqdeenna ma jirto wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka cadaaladda iyo dastuurka wasiirka waxbarashada iyo hidaaya iyo tacliinta sare wasiirka caafimaadka wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiirka qorshaynta I don't think inay meel ay wada tageen intaasoo dhani inay jirto u malayn maayo waxaynan runtii intooda badan ama ay u yimaadeen inay mashaariic ka fuliyaan maxaan ku dhahaa deegaanka marka hay-adihii federaalka ahna insha allah ergeli annagana wixii nalaga sugaayey waxaan filayaa waa naga dhan yahay waxa un la rabaa wixii idinka idinku dhimanna waad wadaan si fiican aad u wadaan waxaan rajaynayaa si midnimo leh inaad wixii aad u fulisaan mar kale waan idinku halmalaynayaa runtii baarlamaan baa tihiin baarlamaanka iyo xukuumadda ama nidaamka fulinta wada shaqayntooda mar walba waa muhiim annagu waxaan muddadii aan joognay dan qaran xukuumadihii naga horreeyey intay baas mariyeen shuruucday baas mariyeen oo dhan waxaa ka badan kuwaan hadda baas marin annaga waxaan filayaa xildhibaano ay ku mahadsan yihiin laba xildhibaan ba hadda halkan fadhisa xildhibaan maxamed cajiib iyo xildhibaan cumar xaashi xildhibaan cumar xaashi wuxuu
wuxuu raadinaya gooyaashii cadcaddaa iyo baashiis awowgiisa sayid buu iska dhigay soo faanfaanay laakiin waxaan ka cabsanayaa inuu faraska inuu ka dhaca ka cabsanaya nin farasiga qaran marka odayaashaas runtii oon aad ugu mahadcelinaya halkan uga mahadcelinayo guddoonka baarlamaanka ee labada aqal ee jooga iyo xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliyeed ee maanta runtii shaqeeyay waxay hormuud ka noqdeen in ay intaan idin sheegay la qabto deyn lama cafiyeen haddii 9 sano sharci la marin waayay shuruuc la marin waayay ayaa la mariyay 9 sano oo la diidanaa oo la hortaagnaa ayaa la mashay marka haddii aysan jiri lahayn runtii oo aan wada shaqayn aad u adag jiri lahayn deyna lagama cafiyeen cunaqabatayn hubna lagama qaadeen security council ma aadeen waxaan sheegayno dhan ma qaban waad ogtihiin markii badda ay dhibaatadu hadda waaga dhaweyd ee MOU-gi soo baxay hal sano naga qaatay dagaalkiisu aad ogtihiin maalinkii aan walaalaheena reer Turkiya aan ka codsanay inay badda Soomaaliyeed ay noo protect gareeyaan iyo waxa ku jiraba one day ayaa xukuumaddii iyo baarlamaankii labadii wixii oo dhan hal mar ayaa la isla mariyay maxaan ku dhahay heshiiskaas haddii ay kala qaybsanaan jiri lahayd oo mashaakil jiri lahayd go'aankaas lama gaadhi lahayn haddaan go'aanka la gaadhi lahayna wax fara badan ayna khasaari lahaa marka wada shaqaynta idinku hadda jaranjaraad ka degaysaan dabcan mid kale oo adag oo markii aad si fiican u qaangaadhaan ka sii adag baad fuulaysaa marka maxadaadkaas aad u kala gudgudbaysaan aad ummad ku hogaaminaysaan midnimo idinka baahan tahay marka qolada fulinta in la barikaabo oo lala shaqeeyo ayay u baahan yihiin haddaan baarlamaanku la shaqayn ma shaqeeyaan way ku adkaanaysaa inay wax qabtaan marka hawl weyn baa idinka sugaysa oo tii khaatumana way idin sugaysaa tii qarankuna way idin sugaysaa haddee markuu inanku qaan gaarana waxaa laga rabaa waxaa la yidhaha horta shaqayso guriga iga bax odayga wuxuu dhaha war guriga iga bax horta soo shaqayso marka ma fududa taa lafteedu waxaa waaye waxaan anagu aan rajaynaynaa waqti dhow in ay Soomaali idin dhahdo war guriga nooga baxo orday shaqaysta marka mar kale waan idin hambalyeynaya wada shaqayntiina iyo sida wanaagsaneed hawsha runtii aad u wadaan iyo sida aad meeshaad wax ka soo bilowdeen maanta meeshaan quruxda badan ee runtii aan fadhino waxay ku tusinaysaa horumarka aad samayseen dardaarankayga ugu dambeeya waxaa weeye midnimo hadday tahay tii ummadda Soomaaliyeed iyo hadday tahay midda deegaankan iyo hadday tahay midda baarlamaanka dhexdiisa hadday tahay baarlamaanka iyo tiimka fulinta midnimadaas nabad oo inaan dadka Soomaaliyeed wada hadlaan meel lama kala aadayo hal jamhuuriyad oo federaalka Soomaaliya halkaas kaasun baa calan inoo ah kuwa kale oo dhani waa tilmaamo ku tusinaya deegaanada laakiin from Lowya Cadde ilaa Ras Kamboni Soomaaliya waa mid hal dawlad aan ka jirto waxaa la rabaa marka inaan dadka la kala fogeyn waxaa la rabaa dadka in la isu keeno dagaalo way dhacaan way dhici jireen weligood Soomaaliya waa lagu imtixaanay inay istisho dhaqan bay u lahayd waana dhaqamada xunxun ay tahay in la soo afjaro oo inaga dhamaadaan in la isdilo ilaahayna xarrimay qof muslima in la dilo bilaa xaq lagu dilo oo bigayr xaq lagu dilo dhaqankaas uu inagu daahay dhaqanka marka isagana ilaahay hayna dhaafiyo waxaan u baahannahay marka in dadkoo dhan ay noqdaan ducaad salaam nabadgeliyo dadkii ku dhawaaqaayay ee nabadda raadinaya inay noqdaan waxaan rabnaa shalay haddii aad ahaydeen kuwii isdifaacayay oo dhibaatada badan halkay ku dhacaysay oo Soomaali wada ogtahay adduunkana wada ogaa maanta idinku inaad noqotaan kuwa nabadda raadinaya oo walaalahood gacanta u fidinaya oo waxaa weeye laa tathriiba calaykum alyawma yaghfir allahu lakum baa loo baahan yahay nabadduna saasay ku timaadaa iyo wanaagu marka inaad noqotaan darafkii iyagu nabadda raadinayay walaaltinimada raadinayay midnimada adkeynayay
taasaan rabaa ayaan idinku baaqaya, taasaan idinkula dardaarmaya, taasayna guusha ku jirtaa. waana hubaa inaad arki doontaan inay taas guusha idinku jirto, oo hoggaamintu idinku jirto, oo barwaaqadu idinku jirto, oo khayrka adduunka iyo ka aakhiraba idinku jiraan. kaasaan raadinaynaa. marka mudan madaxweyne, guddoomiye, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. xubnaha golaha baarlamaanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. shacabka reer Khaatumo mar kale waan salaamayaa, waana idinka mahad celinayaa soo dhoweynta iyo walaaltinimada iyo ahalnimada aad noo muujiseen. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.